Community-ga magaciisa waxa la yiraahdaa study of centralized political structures for Somalia menu of options waxa la dhameystiray 1995 waa documentigii ugu horeeyay ee la soo saaray ee Soomaaliya dawlad xoog loo ishaysataa inay dib uga dhalan lagu soo taliyay documentiga waxa maal galiyay EU waxana loo xil saaray London School of Economics toddoba professor oo 8 professor oo ka tirsan oo ninka ugu caansan ee la yaqaan Soomaaliya uu taqaano yahay Professor Ian Lewis natiijadii ay ka soo saareen way asalkana waxa way farta yara ugu hooseysa ninkii akhriya wuxuu ku arki doonaa waxa ku qoran the term Somalia refers to what was formerly known to Somali Republic wixii Soomaaliya dawladda Soomaaliya la oran jiray baan hadda uga hadlaynaa Soomaaliya halka waxa arkaysaa in laga saaray documentiga markii la diyaarinayay wax Soomaali dawladnimo Soomaaliyaba inay meesha ka baxdo documentigaas way asalkiisuna meesha problemka maanta Soomaaliya haysato waana haddaad ilaa detailkiisa hoostiisa si akhrido ilaa xad waxa laga gaaray leeyahay caasimada waa in Muqdisho laga saara laga bedela buugaasi ku qoran tahay halkaas ay ku qoran tahay waxaad ogtihiin marka istilka iyo dhibaatada maanta Soomaaliya ka taagani Soomaaliya waligeed waa jiri jirta gobol yar oo laga gooyay oo Malaysia laga gooyay oo dadka muslimiinta ahaayeen oo la yiraahdo hadda Singapore waad maqasheen Soomaa waad maqasheen Singapore Singapore ma taqaanaan masaaxadeedu dhul ahaan intay tahay please dadkina juqraafiga iyo thaqaafada caalamiga ah Soomaalidu waa wada siyaasiyiin do you know waa 624 kilometer square waa wadanka dhan oo lagu sheegayo la yiraahdo Singapore ma taqaanaa Soomaaliya meesha ka weyn Singapore dawlad ahaan waxa ka weyn gobolka Banaadir iska dhaaf Soomaaliya gobolka Banaadir just gobolka Banaadir baa wuxuu ka weyn yahay dawladda adduunka dawladaha ugu qanisan kamid ah ee la yiraahdo Singapore gobolka Banaadir baa ka weyn masaaxa ahaan iyo dhul ahaan maaha Soomaaliya oo dhan maaha koonfur oo dhan maaha shabeellooyinka iyo Banaadir maaha just gobolka Banaadir baa ka weyn isaga ka biyo badan isaga ka beero badan isaga ka xoolo badan 624 kilometer malaha biyo malaha oo baad malaha oo xoolo malaha oo waxay keensan petrol malaha biyaha dibadda looga soo daabulaa still wallahi billahi wa aab adduunka yani aab weeye ilaahay cidna ma dulmiyo waa hadalkan idinku bilaabay Singapore 2010 international transparency waxay ka soo gashay numberka saddexaad adduunka ayay ka soo gashay transparency corruption la'aan waxay la tartamaysay Denmark iyo Sweden iyo Finland iyo Norway iyo New Zealand bay number 3 iyo number 4 kula tartamaysay Soomaaliya oo muslimiina oo sunna oo shaafiiciya waxay ku jirtay the last in the list 198 dawladood tan ugu dambaysa corruption baba tuuganimo qashin markaas waxa rabtaan ilaahay hadiyad inuu idin siiyo inuu yiraahdo hooya dawladnimo iyo ammaan iyo nabadgelyo iyo dal hooya that's nonsense haba kama jiraan sharciga ilaahay kuma jirto kitaabka ilaahay kuma taalo waxba looguma hayo Soomaali kitaabka ilaahay wax looguma hayo dad tuuga waxba looguma hayo dawladnimo looma hayo qarannimo looma hayo dad tuuga waxba lagu soo gaaray looma hayo iyo kuwa taageeraya daba nashraynaya oo saabtumaya PhD holders masters baa waxay u saabtumayaan juhalo wadankoodii baabi'inaya iyagiiba bariyaya iyagiiba tuugaya iyagiiba safiiriga dhig wasiiriga dhig hebeliga dhig muxuu ka dhigaa his nonsense Soomaaliya waagii hore qofka Soomaaliga ah wuxuu ku dhaadan jiray Soomaalinimo qarannimo lagu dhaadan jiray hadda magaalada aan joogno intaas oo xaflada laga qabtaa waxaad arkaysaa maanta waxa loo dabaaldegayaa Puntland bari waxa loo dabaaldegayaa Somaliland galmudug baa loo dabaaldegayaa Jubbaland war Soomaaliya xagee ka baxday
soomaaliya xagee ka baxday dowladnimadii iyo qarannimadii soomaaliya xagee ka baxday buuggaa iyo fikradda ku qoran baa lagu baabi'iyey makhaayadaha fadhiya odayaasha makhaayadaha fadhiya oo siyaasadda soomaaliya ka shaqaynay oo carruurtooda gaangiska noqdeen shame on you shame on you shame on you shame on you carruurtooda gaangiska noqoto oo aan ogayn iskuulkay dhigtaan aan garanayn oo af soomaaliya inay xataa ku hadlaan aan garanayn oo starbuckska intuu fadhiya wasiir hebel madaxda yeelay oranaya iyo xuseen hebel halkaasuu ka dhacay oranaya shame on you ka shaqay ilmahaaga waajibkooda ka shaqay ilmahaaga horta iyaga ka dhig dad ka dhig dad muslina oo waddankan degan oo wax ku barta oo nafle oo soomaaliya ka dhig soomaalidu himilay lahayd xuduud bay eegi jirto dibadday eegi jirtay dibadday eegi jirto dalalkii ka maqnaabay ku sii jeedo xuduudda dibadday eegi jirtay laakiin hadda waa maxay waxay u soo jeesatay xuduudaha dhexdooda soomaaliya hoy bay u ahayd qof kasta oo soomaaliya sheegto ninka cali sabiix ka yimaada jabuuti agteeda iyo ka siyoolo ka yimaado iyo ka hawaas ka yimaado qofka soomaaliga ay xamarweyne ku dhashu la xuquuq ahaa wuxuu kaliyuu ka xigay waxay ahayd guriga isagu leeyahay iyo beerta isagu leeyahay isku xuquuq bay ahayd laakiin maanta maxaynu aragnaa qof soomaaliya dad soomaaliya oo laga tarxiilayo gobol soomaaliya oo laleeyahay uma agdalanin ee meel kale doctor laga soo tarxiilayo waxaan u maleynayaa taasi inay cad tahay meeshaa meel ka xun baynu gaari doonaa federalismku wuxuu ina geeriyey ummaddii cidhiidhi xataa dhaqaalihii iyuu baabi'iyey waayo xabadda mooska ah ama xabadda cambaha ee jilib laga keeno marka ay afkooda lagu soo cashuuro ee xamar lagu cashuuro ee jawhar lagu cashuuro ee cadaada lagu cashuuro gaalkacyo lagu cashuuro qiimahay ku tegaysaa boosaaso alaabta boosaaso laga keeno ilaa qolo kastoo dawlad sheegatay waa inay cashuur rays garaysaa waa inay cashuurtaa waa dhaqaalihii iyo ummaddii soomaalida halkaasaa la geliyey أنا وحنا لله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وما اللي هداني يسبدلين إلهي حالة إذا ما بدله يسبدل ديار موتهين حتى يسبدل ديار وتهين حالة دين إلهي وبدليا marka waxaan u maleynayaa berri waxa ka xigta uun dawladdii Soomaaliya jabhadaha lagu burburiyo cadowga soo hogaamiyay haddana magacii Soomaalinimo dawlad goboleedya bedelay berrina waxa ku xigto ogaada dawlad goboleedku waddankay rabtay ku beeri kartaa habba ciidsanina arrinta waxaan xasuustaa dawladda Jubbaland markii la dhisay dawlad goboleedka Jubbaland madaxdii u tartamaysay nin ka mid ah Sheekh Shakuur waa arrintaasi meel walba ku taallaa wuxuu ku khudbeeyey Kenya waa stakeholder bay ku tahay arrimaha Soomaaliya yani qayb bay ku leedahay waa in laga talageliyaa Faarax Macallin oo ahaa afhayeenka baarlamaanka Kenya ku xigeenkiisu ninka darajada jooga siyaasad dawladeed waxaan kuma hadli karo muxuu yiri maanta intii ka dambayso afmadow iyo badhaadhiye Kismaayo Muqdisho laga xukumi maayo haddayna dawladda Kenya raalli ka ahayn halka kuma hadleen maxay la waa gudoomiye ku xigeenkii baarlamaanka Kenya afhayeen ku xigeenkii buu ahaa anigu waxaan leeyahay bari waxay noogu xigto dawlad goboleed kastaba kililka lahaad iyo sharaab waxay noqotaba kuwa ku biiraan waxa ku soo gabagabeynaya arrin wuxuuga aad ii damaqday magaalada Boorama waxa ka soo raacay basaska caasiyada yareerka 2013 Hargeysa oo soo socdaan shirkan fuulay yarkiiba wuxuu igu nagu shiday heesa xabashiya af axmaari markaas aan adeer man laga dabis intuu igu soo jeesto adeer miyaanad ogeyn kililka lixaad inaan ka midnahay maxaad ku hadlaysaa inaan kililka lixaad ka midnahay miyaanad ogeyn wiilka yarka ah ee darawalka aan aqoonta lahayni Soomaalidu waxa taa dhariga maxaa ka keenay karka kuleelka wuxuu arkay buu hadalka u yiri anigu waxaan leeyahay Soomaalidu ha isdaba qabato inta goor tahay alla isdaba qabto qarannimo sidii loo soo celin lahaa hal lagu dadaalo taasna waxa lagu heli karaa in Ilaahay laga cabsado وحدة الصومالية أنا لقى شقيو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته